السلام عليكم saaxiibayaal waa aniga Engineer Sam maanta waxaan ugu talagalay muuqaalkan inaan uga hadlo qaabka aad ku samaysan lahayd ChatGPT adigoo Soomaaliya jooga marka ChatGPT sharaxaad badan uma baahno barnaamijkan biyahan aad ayuu internetka u qabsaday waana markaa barnaamij la tartamaya shirkadda Google lagana yaabo inay markaa ka saarto Google hawada ay ka saarto marka barnaamijkan waa barnaamij ciriiri gelinayo shirkadda Google uma baahno marka sharaxaad dheer inaan ka bixiyo muuqaalo badan oo dad badan ay ka diyaariyaan ay jiro marka muuqaalkan waxaan ugu talagalay qaabka aad ku samaysan lahayd adigoo Soomaaliya jooga waayo caqabado badan ayaa ka jira marka Soomaaliya marka aad joogtid yani in addresskaaga ama application ama website qaar ay ka diidaan dalka adigoo jooga marka caqabadaas ayaan ku gudbaynaa ugu horreyn marka barnaamijkan ChatGPT si aad u samaysid waxaad u baahan tahay marka inaad qalisid IP addresska aad ku joogtid marka Soomaaliya يعني تليفونكaaga marka aad internetka ku xirtid waxa uu leeyahay marka aqoonsi yani dalka aad joogtid muujinayo marka si aad u qarisid oo aad address kale u isticmaashid waxaad u baahan tahay barnaamij VPN sidoo kale lambarka Soomaaliya yani ChatGPT marka sign up dhaysid looguma talagalin yani uu diidi doonaa wadamada laga xiro ayuu ka mid yahay marka isagana waxaad isticmaalaysaa lambar aniga aan kugu soo qaybta dambe aan kugu sheegi doono qaabka aad u heleed marka ugu horreyn waxaad u baahan tahay VPN-ka inaad soo degsatid Yoban VPN proxy unlock kan ayaa marka badan aan isticmaalaa marka hadda waa ii degsan open ayaa leeyahay dabcan waa uu shidan yahay xataa marka hadda waxaan ku soo xirtay location-ka United States marka saad ugu soo xirtid locations ayaa ku dhufanaysaa kaliya waad qoraysaa marka halka aad rabtid inaad yani location-kiisa isticmaashid marka kadibna calaamadaas ayuu ku saari doonaa location-ka saaca markuu kugu soo baxo calaamadaas ayaa tagsiinaysaa marka kadibna sidaas ayuu marka IP addresskaada u bedeshay wadan kalena aad u joogtaa marka kadib waxaad soo galaysaa marka Chrome-ka ama any browser ee kugu jira taleefankaaga kadibna waxaad ku qoraysaa halkan ChatGPT marka kadib waxa ku soo bixi doono shirkaddan OpenAI waana shirkadda iska leh marka barnaamijkan ChatGPT-ga marka iyada ayaa ku dhufanaysaa marka kadibna page-kan ayuu ku keeni doonaa marka waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay try ChatGPT qaybtan waa uu kugu soo saaraa sidoo kale haddii aad yani qadkaaga fiican yihiin qaybta koran waa uu kugu soo saaraa marka hadda qaybtan hadda aragnaa qaybtan ay ku dhufanaysaa try ChatGPT meel ay ku qorantay oo kaliya ayaad ku dhufanaysaa verify you are human yani inaad bini aadan tahay oo kala xaqiiji klik ayaa siinaysaa caadi marka waa uu kasii gudbi doonaa marka kadib haddii aad ciwaan ku lahayn waxaa ku dhihi doonaa marka haddii aad ciwaan ku leedahay login dhah haddii aadan ku lahayn marka sign up ayaa leedahay hadda ayaa iskareysanaysaa marka anaga waxaan leenahay sign up ciwaan horena u lahayn marka muuqaalkan waxaa ugu talagalay inaad fahantid qaabka aad ku samaysan lahayd marka halkan waxaa kugu weydiin doonaa Gmail marka Gmail-kaaga toos inaad u gelisid ama inaad taleefankaaga Gmail-da kugu jiro meeshaan aad ku xidhaysid meesha ay ku qoran tahay continue with Google marka aniga continue with Google ayaan leenahay marka kadib waxa uu soo safi doonaa qaybtan inta Gmail ee ku jira mobilkayga marka midka aan rabo ayaan ka dooranayaa marka kadib waxa uu leeyahay tell us about you adiga wax kugu saabsan yani noo sheeg marka magacaaga oo kale ayuu soo qabanaya Gmail-ka kugu save gareysan yani qaabka Gmail-ka uu qoran yahay haddii marka aad rabin waad ka bedeli kartaa marka aniga waxaan leenahay continue marka caqabada meeshaan waaye caqabadii koowaad waa addresska ayay ahayd addresskii waan soo xalinay maadaama addresskaas soo xalino oo United States address aan isticmaalayno calankii marka wuxuu soo qortay ama lambarka United States waxa u maleynayaa marka inaad joogno dalka Mareykanka si aad u isticmaashid lambar kale waa isticmaali kartaa kaliya United States kugu xirno laakiin wadamada la ogol yahay oo dhan addressyadooda waa isticmaali kartaa marka aniga hadda waxaan isticmaali doonaa mid ayaan isticmaali doonaa si aad marka lambarada u heshid adigoona marka qof kale yani lambar ka sugin waxaan ku soo jeedinaa marka inaad soo degsid application-kan la yiraahdo 2NR
Play Store ama App Store waad ka helaysaa. Sidoo kale markaa browserka taleefanka kugu jiro waad ka qori kartaa. Marka Play Store ayaad ku qoraysaa 2NR kadibna waad raadinaysaa. Marka linkigan ayaad raadinaysaa 2NR download. Marka midka camal ayaad ku dhufanaysaa ama midka aragto aad kasoo degsan kartaa website-yadan. Aniga marka kan ayaan kasoo degsadaa. Linkigan waxaan kusoo dhigi doonaa marka muuqaalka description-ka aad daawanaysid, qaybta hoose description-ka ka fiir muuqaalka. Marka kadib download ayaad soo dhahanaysaa, waa soo degsanaysaa. Marka waxaan isku sii mashquulin marabo muuqaalka ay iga dheeraanayo. Soo degso. Marka aad soo degsid application-ka aad imaadid qaabkan ay ugu soo bixi doonaa. Marka ugu horeyso waa inaad ogolaataa allow iska dhaa waxyaabahan ay ku weydiin doonaan su'aal iska kooban oo aad markaa permission aad siinaysid application-ka. kadibna qaybtan ay ku weydiin doonaa email-kaaga. luqad kale ayuu ku qoran yahay, yacni luqadda Poland looga hadlo. Marka application-ka waxaa laga leeyahay Poland. Marka haddii aad luqad yacni English ka duwan haddii aad aragtid waxaa markaa hala yaabin, kaliya marka qaybtan ay ku beegan tahay accept. Marka accept iska dhaa. kadib waxa ay ku weydiin doonaa calaamad meel iska taabasho screen-kaaga. kadibna meeshan waxaa ku qoran select your number, yacni meeshan oo kale select your number. marka waxaan ku dhufanaynaa numberka isaan u samaysana qaybtan. kadib wuxuu ku leeyahay meeshan ina waxaa la rabaa meeshan yacni magaca aad gelisid, magacaaga oo kale ayaa meeshan gelinaysaa, magacaad u bixinaysay, lambarka aad samaysanaysay. marka aniga GPT oo kale ayaan sameynaa ama ChatGPT. sidoo kale marka lambarkan meeshan kaaga muuqdo oo recaptcha ayaa la yiraahdaa, waa lambar isbedela mar walba. marka lambaradan qarsoodiga ah ayaad meeshan gelinaysaa si uu kala ogaado inaad robot tahay inuu qof caadi ah tahay. marka sidoo kale meeshan kor ayaa wadaysaa, qaybtaas iyadan inaad tig saartay ayaa la rabaa. kadibna calaamada ayaan ku dhufanaysaa. marka kadib lambarka ayuu qaybtan kaaga soo saari doonaa iyo magaca ay u baxday. lambarkan waxaa laga leeyahay marka Poland waa inaad mar walba xaqiiqsataa. application-ka ChatGPT ama website-ka ChatGPT ayaa soo furnaysaa. kadib meeshan United States ku ahayd ayaa waxaa ka dhiganaysaa Poland, yacni Poland ayaa soo dooranaysaa wadankaas. Poland meelaha ay u saaraya waa ka marka application-ka linki waxaa soo koobiyeysanaysaa, lambarka ayaa soo qaadanaysaa. marka lambarkan ayaa meesha gelinaysaa. tusaale hadda aniga waxaan leenahay marka lambarkaad soo gelisid send copy ayaa leedahay. haddii oo lambarka la qaatay mar labaad ayaad ku laabanaysaa. marka waxaa leedahay ilaa 3 lambar ayaa lagu ogol yahay. marka aad ayaa leedahay. marka lambarkani kale waan soo samaysana isaga ayaan gelinaynaa. marka kadib lambarka aad gelisid waxyar ayuu raadin doonaa. kadibna markaa code ayuu kugu soo diri doonaa lambarkii hadda aad soo gelisay meesha. waad u laabanaysaa marka codeka ayuu hadda soo diray meesha ayuu laabtay. codeka hore ayaa marka code hore ayuu soo diraa jiro oo iga khasaaray. marka codekan inuu iga khasaaro marabo waa inaad ciyoob gelisaa marka codeka ayna marka waqti badan u dhaxaynin. marka codeka aad si fiican si saxan aad u gelisid waa uu ka yeeli doonaa hadduu codekaas yacni si saxda u gelisay qaybta kale ayuu kusii gudbin doonaa ChatGPT-ga. marka haddayti wadadii oo aan soo booqanayn oo kale barnaamijka ayuu haddana weydiinaya waxyar aad sugaysaa. kadibna inaad human ama robot waxaad tahay ayuu kala ogaanaya. marka tigta calaamadaas saar. marka calaamada tigta aad saartid waxa ku keeni doona marka chatbot-ka saxda ee meesha aad wax ka qor lahayd ChatGPT-ga waxyar ayaa sugaysaa. marka kadib hadda waxaan ina keenay ama noo soo saaray dashboard-ka guud ee aad marka ChatGPT ka isticmaaleed. tusaale anaga hadda waxaan weydiinaynaa how to make money online, yacni qaabka aad lacagta online-ka ugu samayn kartid. marka wuxuu ku dhaca aragno dabcan su-aashii daqiiqada ayuu ku qaadatay inuu ka jawaabo. marka steps aan online-ka lacag uga samayn karana waa inuu sameeyaa. marka qodobo ayuu noo saaray 1 2 3
ilaa iyo marka dhowr qodob ay nagu soo saaraya. Hadda sidaan waxaan ku samaysanay ChatGPT. haddii aad muuqaalka ka heshay like saar sidoo kale sii gaarsii asxaabtaada.